kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiin meel walba joogtaan waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaal walba aan halkan soo geliyo waana sidoo kale idinkaga mahadcelinaya mar walba sidaad igu dhiirigelisaan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe inoo saar like iyo share hanaga ilaawin waxaan idiin soo gudbi doonaa maanta ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhici doonta horyaalka Soomaaliya Premier League ka tirsan taas oo dhexmari doonta kooxaha Horseed iyo Muqdisho City Club kulankan ayaana ka dhici doona garoonka Engineer Iriso Stadium ciyaartan oo qayb ka ah horyaalka Soomaaliya Premier League ciyaartan ayaa ah mid aad u xiiso badan labada kooxood ayaana diyaar garow xoogan u galeen ciyaartan kulankii tobanaad ee laga dheelay fasal ciyaareedka 2019-20 haddaba xaqiiqooyinka laga qoray ee kulankani kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose ee Muqdisho City Club kulankii ugu dambeeyay waxa ay 2 gool iyo 1 gool guuldaro xanuun badan kala soo kulantay naadiga Rajo Sports Club waana kulankii ugu horeeyay ee fasal ciyaareedkan ka ciyaarto marka laga tago kulanka maanta ay la ciyaarayso naadiga Horseed oo ah kulankeeda labaad wiilasha Shacbi maalin Horseed ciyaartii ugu dambeysay waxay barbara hal iyo hal la soo gashay naadiga Jazeera Sports Club naadiga Muqdisho City Club ayaana rabta in ay ka aragoosato kooxda Horseed iyadoona ku taamaysa dhacdadii ugu dambeysay finaalka koobka General Daud oo ay guuldaro kala kulantay kooxda Shacbi maalin Horseed lagana qaaday koobka xiisaha badan ee General Daud kooxda Horseed waa mid ka itaal roon wiilasha Muqdisho City Club marka laga cabir qaato labadii kulan ee ugu dambeysay horyaalka la soo dhaafay ay wada ciyaareen waxaana labadaasi kulanba adkaatay Horseed taas oo ka dhigan in Minan iyo Martiba laga adkaaday naadiga MCC labada kooxood ayaa dheelaya kulankoodii ugu dambeeyay ee horyaalka marka ciyaartan waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan labadii kulan ee horyaalkii la soo dhaafay oo wada is arkaan labadan kooxood waxa adkaatay kooxda Horseed taas oo ka dhigan in laga itaarooyay naadiga MCC labadan kooxood ayaa dheeli doona kulankoodii koowaad ee sanada cusub 2020 si lamid ah waa kulankii labaad ee fasal ciyaareedkan ay ka dhileen horyaalka Soomaaliya Premier League naadiga Muqdisho City Club ayaa waxa shaki laga gelinaya ciyaaryahankeeda Xasan Santos kaasoo laga yaabo inuu dhaawac jilibka ah oo ciyaartan ku seego 9 saac bar ayay ka bilaaban doontaa gagada Stadium Engineer Iriso Stadium X Conis waxaana dhexmari doonta kooxaha Horseed iyo naadiga Muqdisho City Club waa mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro horyaalka Soomaaliya Premier League waad ku mahadsantihiin daawashada aragtidaadana hoos ugu reeb cid aad u guusho rajeynayso